بسم الله الرحمن الرحيم soo dhawaada saaxiibayaal insha Allah maanta waxaan qaadan doonaa sidaan ku ballanay 10kan ama posterkan inaan sameeyno ayaan doonaa insha Allah muuqaalkan dhexdiisa insha Allah programka isticmaali doonaa waa programka Adobe Photoshop markaas la socod wanaagsan posterkan inaan doonaa inaan sameeyno aad ka quruxda badan leh marka ugu horeysa waxaan ka bilaabi doonaa warqadaan isticmaali doono oo saad arkaysaan halkan ka muuqata waxaan tegi doonaa markaa file waxaan dooran doonaa new halkan waxaan gelin doonaa markaa pixels deetana halkan waxaan ka dhigi doonaa widthka 1080 height-kan waxaan ka dhigi doonaa 1350 1350 halka resolution-ka 300 baan ka dhigayaa color mode-ka RGB baan ka dhigayaa create baan leeyahay markaas way inta markaan sameeyo warqadii ayaa ii soo baxday design-kan doonayana waa kan inaan sameeyo marka sawiradan iyo waxyaabahan oo dhan halkan aan ku sii diyaarsaday iyagoo background ka jaray marka wax shaqooyin ka horeysay ma jirin simple background-ka dawaa inaad ka jari karto sawirkii aad u baahnayd inaad poster-ka u isticmaasho intaas ma nimka sii qabsaday halkan inay igu jiraan sawiradii aan isticmaalay iyo waliba texture-kii iyo sawirkii background-kan isticmaalay inta markaad soo diyaarsato oo mar walba waajib ah intaan design-ka bilaabin waxaan ku xigsiin doonaa inaan background samaysto background-ka midabkan leh inaan samaysto marka waxaan tegi doonaa warqadaydii waxaan tegi doonaa markaa adjacent layer waxaan dooran doonaa gradient deetana waxaan kasii dooran doonaa allahumma salli ala maxamed design-kii ama color-kii aan u baahna marka color-kaasaan u baahanahay okay baan siinayaa reverse baan odhanayaa maadaama midabkaasi xaggaa xigo color-kan casna waan ka saari doonaa qaabkaasaan markaa u isticmaalayaa okay baan siinaya intaa markaan sameeyo waxaan soo qaadan doonaa sawirkan oo aan background ku isticmaali doono sida halkan idinka muuqata marka mar walba design-kii baan tusayaa from scratch saad horki kartaan tallaabo kasta halkan marayno intaa markaan sameeyo waxaan soo qaadan doonaa sawirkan waxaan keeni doonaa markaa design-kaygii markaa dhowr qaab baa loo dhex keenaa waad garanaysaan sameeyo waxaan ku fadhiisiin doonaa intaan u baahanahay sawirkayga color mode-ka markaan bedeli doonaa waxaan ka dhigi doonaa allahumma salli ala maxamed overlay ama multiply kolba qaabkaan anigu uga helo ayay ku xidhan tahay marka overlaygaasaan iska isticmaali doonaa intan markaa waxaan sameyn doonaa maadaama sawirkii iyo background-ka ay kala muuqdaan mask maan sameyn doonaa marka waxaan odhanayaa add layer mask waxaan tegi doonaa markaa gradient tool-kayga halkan madow baan ka dhigayaa halkanna waxaan ka dhigi doonaa gradient-ka qaybi masaxan tahay waay intaasaan markaasaa u calaamadinayaa aan gradient-ki u isticmaalaya marka qaabka quruxda badan leh ayuu background-kayga isku dhex galay intaa waxaa ku xigi doonaa inaan isticmaalo markaa texture-kan aan ciyaartooyda daba dhigo marka waan soo qaadanayaa waxaan keenayaa design-kaygan size-kiisa mar walba waan yareynayaa waay intaa markaan sameeyo color mode-kuma isagana simple aan ka bedeli doonaa anigoo ka dhigaya markaa aan idhaahdo screen kaas markaa saasaan isagana u isticmaalay waxay igu xigi doonaa intaasoo dhan kan iyo kan uma baahni marka waan iska xidhayaa si space-ku igu filaado sawiradii ciyaartooyda markaa sawirkan isagu inoo dambeyn doonaa waa sawirkan shaqada badan ka qaban doono laakiin sawiradan kale ayaan iyagana iska soo diyaarsanayaa sawirkana ugu horeeya sawirkana markaa ugu horeynayaa waxaan keeni doonaa design-kaygii sawirkanaa ku xigi doona isagana waxaan keeni doonaa design-kaygii drag and drop umaan isticmaalayaa sawirkana isaguna igu xigi doona waxaan keeni doonaa design-kaygii waay intaa markaan sameeyo sawirada markaa adigaa soo xulan kara anigu sawiradan aan ka helay dee sawiro badan oo ciyaarta laga qaaday ayaa jira waay intaa markaan sameeyo
ciyaartooydu say u kala sareynayaan iyo waxyaabahana adigaa dooqanaya ama dooranaya. qaabkaasaan markaa udhigayaa. Marka waxaan doonayaa dee qaabkan iminka inoo muuqata waa foolxumo, in aynu ka dhigno markaa masking layer aynu ku wada darno. markaa masking baynu ku wada daraynaa, kana uga horeynaya. marka add layer masking baan odhanayaa, deetana qaabkanaan masking u sameynaya. qaabkaasaan ka dhigayaa, kanaa ku xigayaa, isagana masking baan ku darayaa, kaa u dambeeyaan ku xigsiinayaa, isagana masking baan ku darayaa. waay kana masking baan ku darayaa macalinka. waay intaa markaan sameeyey, imika designkaygu aada iyo aad buu qurux badan yahay, laakiin weli fare kama qodna. waxaan ku xigsiin doonaa shapekan, ama sidoo kale sawirkan aan ku xigsiin doonaa. waay intaa markaan sameeyo, waxaan doonayaa markaa in aan imika kusoo daro designkayga shapeka halkan inooga muuqda. sidoo kalena sawirkan aan soo qaato labadan ciyaartooy oo isagoo halkan igu diyaarsan. markaa waxaan kala gooyey backgroundkii iyo ciyaartooydii. markaa backgroundka gaar baan u edit gareyn doonaa, waxaan ka dhigi doonaa bilaa color. markaa saa u edit gareeyo, labadoodan ayaan qaadan doonaa. markaa bilaa color qaabkan uga dhigi karaa, waa inaan tagaa right click, waa inaan doortaa markaa hue saturation. waa inaan markaa sameeyaa sidoo kale waa in levels aan ku daraa. qaabkaasaan markaa bilaa color uga dhigay backgroundkayga. waxaan ku daray simply hue saturationkii aan xidhay iyo levelskii on yar madow ku daray. intaa markaan sameeyo, labadan waa isku right click baan siinaya, waxaan ka dhigi doonaa smart object. labadan markaa soo qaadanayaa, waa backgroundkii oo bilaa colora iyo ciyaartooydii oo iyaguna gaar u fuqsan. waay labadaasaan soo qaadanayaa, waxaan keeni doonaa bosterkaygii. markaan saa usoo qaato, xaggan aan soo dhigi doonaa. markaa saad arkaysaan dee sawirkani aada buu u foolxun yahay, marka sidaasoo kale uu yahay. si ciyaartooyada dambana loo arko, waa inaan maskinka ku daraa aan isticmaalini. damastili anu maskinka waan isticmaalaa, marka idinkan waxaan kula talinayaa inaan isticmaashaan. markaa qaabkaa quruxda badan leh ayuu imika noqday design-kaygii. imika simbal waxaa noo hadhay waa shapeka iyo sawirada ku dhex jira, iyo in yaroo daashnaasha qoraalka iyo waxyaabahaas. markaa shapekaasaan u samaysan karaa. waxaan u samaysan karaa markaa rectangle baan tegi doonaa, ama idhahda bentool, weliba carventure. deetana qaabkaasaan usoo dhigi doonaa. markaa double click markastoon siiyo, waad dareemeysaan in uu leenku ka dhigayo mid toosan uu ka dhigayo. waay markaa ka waad iska fahmeysaan, hore waynu soo aragnay. waay qaabkaasa markaa shapekiina usoo dhigay. markaa shapeki waxaan ka dhigi doonaa sida halkan ka muuqataa, laba color oo isku jira ama gradient. markaasaan uga dhigo, waxaan tegayaa shape, waxaan tegayaa fill, waxaan dooranaya gradient, waxaan dooranaya markaa labada color, weliba kaasaan dooranayaa. sidoo kale waxaan sameynaya stroke, waxaan tegayaa markaa shape, stroke baan shidayaa, haddaan baan ka dhigayaa, waan yareynaya marka strokegeyga 1.5 meelahaas ama 4.5 ayaan ka dhigi karaa. weliba sii yaree waxaa ka dhigi karnaa 3 ama 2. wax saa usii badan ma rabno, laakiin ciyaartooydii baa naga qarsoontay, waa inaan daba marinaa. marka ciyaartooydi maadaama ay noo go-onaayeen, waa inaan daba marinaa.
exactly markaa qaabkan doonayna waa qaabkaas. Waxaan dhex keeni doonaa sawirkan oo isaguna halkii noo yaala, soo qaado markaa sawirkan ayaan saa usoo dhex dhigaa, shaybkii baan ku dhex ridayaa, waan khafiifinayaa, waad arkaysaan. maskin baan tegayaa, intaasaan ka yar masaxayaa, waan koobiyeynaya, haddana xaggaasaan dhigayaa, kanna intanaan ka masaxayaa, qaabkaasaan markaa usoo dhigaya. Simbali intaa waa fahmaysaan. maxaa inoo hadhay oo kale, lineskan inoo hadhay way ama iftiinka yar baa inoo hadhay, markaa iftiinkan halkan ay kelinaa, kan marka effectiga yar baan ku daraynaa, waa inaan ka dhignaa screen oo garanaysaan. markaa designkeyga waa designkeyga hore, designkeyga cusub baan keenayaa. waay markaa dee adigaa maamulaya, adaa yareynaya, adaa scalekiisii bedelaya, rotation baad ka dhigaysaa, qaabkaasaad u dhigaysaa. waay wixii dambe waad koobiyeynaysaa markaa. waay intaasa inaga badan. meelo kaloo badan haddaad ubaahantay waad kusii dari kartaa. maxaa kaloo inoo hadhay, waxaa inoo hadhay inaan ciyaartooydan yar edit garayno little more si ay u qurux badnaadaan. marka sidii caadiga ahayd bay isku daba yaalaan. marka ciyaartooygan aan tegayaa, layer cusub baan sameynaya, waan hoos marinayaa, waxaan ku dari doonaa in yaroo iftiin yar baan ku dari doonaa. marka waad dareemaysaa nimanka inuu soo qurux badanayo. macalinkaan tegayaa, layer cusub baan ku darayaa, isagana backgroundkiisa. waay kanaan tegayaa, sidoo kale layer cusub baan ku sameynayaa, deetana qaabkaas oo kale. waay iftiinkaa yaro dambe markaa micno badan buu sameynayaa, wixii reality buu ka dhigayaa. kana sidoo kale waay inaad ku badisana oo foolxumo qaabkaas ka dhigsa. marka iyaga laftigooda waan edit garayn karnaa. markaa macalinka oo kalean tegayaa, filter baa odhanayaa, camera raw filter. markaa dee editkiina si aan waqti badan nooga qaadan waan iska soo gaabinaynaa, edit yaroo simbala waan isticmaalaynaa. waay intaasaan iskaga daynay, sidaasoo kale aan iska odhanayaa. kan laftigiisa haddaan yar baahana waa edit garaynayaa, camera raw filter. isagana intaasa iga badan. markaa wixii kale idinkaa ku dari karaa. shaybka haddan baan soo koobiyeysanayaa oo ah qiiqaa yar ama smokegaasaan soo koobiyeysanayaa. smokegii halkaan dhigayaa markaa sidii wixii reality looga dhigo. markaa ma wanaagsana mar walba macalinka inaad copy and paste siiso. waa inaad adigu your own design aad keeni karto, maadaama wixii imika aad fahantay. labadan ciyaartooy laftigooda waxaan sameyn karnaa si ay u kala muuqdaan iyaga iyo backgroundku. iftiinkii baan ku dari karnaa.
waay designkii imika qaabkaasaynu ku dhamaynay wixii qoraala iyo waxyaabaha kale idinkeed ka tegaya assignment u qaata waxaan jecelahay inaad muuqaalkan ka faa'iideen insha allah muuqaalkan iyo muuqaalo kale xiiso badan step by step ah youtube-keena kala socda noo subscribe gareeya like gareeya muuqaalkan oo gaadhsiiya magaranaysa asxaab badan oo share gareeya insha allah haddii la yidhaahdo aad baa mahadsantihiin jasaakum allahu khayran